بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan bahda ku xiran janaalka mimarqaan janaal iyo kuwaan ku xirneenba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada xisaabta fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imaanaya mk janaal soo gudbiyey waa ustaad mimarqaan fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka inoo subscribe garee adigoo gujanaya gambareeqa like commentigan waa inoo muhiim mahadsanid waxaan ku guda jirnaa jabtarkii afraad ee statistics ee fasalka form 4 ee manhajka cusub inagoo aan kasoo qaadanayay mean wax loo yaqaano iyo qaacidooyinkiisii sida loogu shaqeeyo group data iyo medianka sidoo kale maantana waxaan diiradda saari doonaa mood of group data mood of group data mood of group data marka hore mood maxay tahay marka moodku waa valuega of variate which occurs most often waa qiimaha yani markaasi inta badan soo la laabta oo yani halkaa mar laba inta badan soo la laabto tusaale ahaan laba oo kale saddex oo kale 4 oo kale laba oo kale 2 oo kale 3 oo kale mid badanaa jiro oo yani markaas inta badan soo la laabto sida 2 oo kale taas marka mood kaasaa loo yaqaanaa badidhacaha waa valuega inta badan soo la laabta ama most often ah occurs ee dhaca xogta ka dhacda ama daatada ka dhaca sidoo kale waxaan qaadan doonaa formulihiisa oo mood group data formulaha qaabkaas ayuu u samaysan yahay oo x sub k plus h qoys 4 qaybta kore waxaa saartaa f sub k ama f sub k minus f sub k minus 1 oo loo qaybiyo 2 f sub k minus f sub k minus 1 minus f sub k plus 1 maxaa loola jeedaa markaa xarfahaasi x sub k-da waxay inoogu taagan tahay model classkii aanu markaa diiradda aan saareyno lower limitkiisii model classkana sidee lagu ogaanayaa qaabkiisa ayaan ku qaadan doonaa cashirkan insha allah f sub k-na model classkaasi frequencyha uu wato f sub k minus 1na model classkaas frequencyha uu wato frequencyha ka gadaale yani ka dambeeya waxaa loo yaqaanaa f sub k minus 1 ama frequencyha of class preceding ee ka dambeeya model classka frequencyhiisa midka ka dambeeya frequencyha ka dambeeya ayaa loo qaataa xarafka ama sumada oo f k minus 1 f k plus 1na asina waxaa loo qaadanaya marka frequencyha model classka frequencyha ku xiga ee next frequencyha ku ah ayaa markaasi noqonaysa marka f k plus 1 headkana waa widthkii horaan usoo baranay class intervalka marka ugu horeysa waxaad ku qasbantahay inaad ogaato model classkaaga markaad ogaato waxaa diiradda ku saarmaya marka class intervalkii oo meesha yaala iyo frequencyhiisii haddaba frequencyhaasi yani markaa model classkaasi aan diiradda saarna sidee marka hore model classka aynu ku ogaanaynaa model classka waxaa inoo noqonaya the most frequencyha ama the largest frequencyha midka noo ah kan frequencyha ugu badan leh ayaa wuxuu noqonaya marka model classkeenii aan shaqada ka qabanayno maxaan dhahnay frequencyha ugu badan maadaama mood aan badidhacaha aan ka hadleyno oo which occurs most often uu yahay waxaan leenahay frequencyha ugu badan ee markaa class intervalka ama model classkaasi dhaca ayaa waxaynoo noqonaya marka midkaan shaqada ka qaban lahayn oo model claskaan u baxsan frequencyhiisu f sub k ayaan u qaadanaynaa frequencyha ka gadaale ama ka dambeeyana f k minus 1 aan u qaadanaynaa frequencyhii model classki iyo frequencyha ku xigana waxaan u qaadanaynaa f k plus 1 widthkana waxaa waaye waa class intervalkii halkaa markaa inoo taagan oo model classkeenna xulanay way kadibna qaacidadii ayaad ku qaadan doontaa wayahay exampleka 4.7 waxaan raadin doonaa mood inagoo markaa aan haysano class intervalka iyo weliba frequencyhan ugu horeyn waxaad xulanaysaa model classka xulashada iska xulasho leh maahane waxaad fiirinaysaa frequencyha midka ugu badan sida tusaalaanka frequencies waa 6 kan waa 8 10 12 6 5 3 almost saafilayo kan ayaa maxay noqonaa marka frequencyha ugu badan ee halkaa yaala frequencyasha maadaama frequencyha ugu badan uu yahay qaybtaas ayaa waxay noqonaysaa marka model classki oo ah class intervalkan waa haysanaa frequencyhan waa haysanaa okay clearly model classka waa 60 ilaa iyo 80 waa sababtan waxay tahay waa maximum frequency ayuu leeyahay marka maximum frequency ayuu leeyahay
waxaan dhahaynaa marka maadaama maximum frequency uu leeyahay givenkeena ayaan baxsanaynaa oo marka hore lower class limitka ayaan ka dooranaynaa. Lower class limitka waa 60 oo yacni limitka markii loo fiiriyo intervalka kan lowerka ama low ah 60 iyo 80 waa 60 ayaa ah frequency-ha iyo weliba widthska iyo frequency-ha xiga iyo frequency-ha ka dambeeya ayaan siinaa sidoo kale. Marka baadi goobi doonaa oo givenka baxsan doonaa kadibna qaacidadeena ayaan u adeegsan doonaa. waayahay widthska waxaan wadanaa 20 oo widthska waxaa waaye 80 oo laga jaray almost 60 80 laga jaray 60 almost equal 20 sidoo kale waxaan haysanaa marka frequency-ha oo 12 haysano. sidoo kale frequency-ha ka dambeeya frequency-ha hadda taagannahay oo waa 10 waaye. sida aweed fk-1 oo ah frequency-ha ka dambeeya frequency model class-ka 10 waaye. si la mid ah frequency-ha ku xigana fk+1 na asina waa 6 frequency-ha ku xiga asina sidoo kale waa 6. saddexda frequency waa isticmaal rabnaa laakiin waa inaa kala ogaataa laakiin frequency-hooda midka kale ah kan model class-ka ah f ay inoo taagan tahay fk. midka ka dambeeyana oo ka gadaaleeyana 10 waaye oo fk-1 waaye. kan ku xigana ilaan kan la weli laga sii socdaa kan ku xigana asina sidoo kale fk+1 waaye equal waxay la mid tahay marka 6. waxaa waaye waa inoo diiwaan gelisan yihiin givenkeena keliya waxaan u baahanaa marka qaacidadeeni inaan ku dabaqno si toos aan ugu bedelina marka. waayahay qaybta anagoo badmaas isticmaalayna qaybta gudaha aan kasoo dhammaano. saafilay labadaani kala jaristooda waxayna siinaysaa 2 ayayna siinaysaa. qoladana marka la isku dhuftana waxaa waaye waa 24 waaye 24 waxaa laga sii jaraa 10 laga sii jari doonaa 10 markii laga sii jarana waxaa laga sii jari doonaa 6 laga sii jari doonaa. okay 24 markii 10 laga jaro almost waa 10 4 waaye yacni 14 weeyaan. 14 markii laga sii jarana 6 laga sii jarana waa 8 waaye. korol 8 korol markaasi markaa soo baxaysa marka 2 ilaa iyo hoos oo aan haysano marka 8. qaybtan ayaan sii burburinaynaa oo ah korna qaybtan waxaan u qaybinaynaa 2 oo hal ah intana qaybtan waxaan u qaybinaynaa 4 ayaan u qaybin doonaa oo dib meesha waxaa kasoo baxaysa 1/4. okay 20ka ayaan halkan ku dhufanaynaa oo 20 ayay noqonaysaa. 20 markii 4 loo qaybina almost waa 5 waaye. okay 60 oo lagu daray 5 labada isku darkoodana waxay keenaysaa marka 65. okay dad qaar hadhow waxay samayn doonaan labadan inay isku daraan kadib ay yacni kan ku dhufan doonaan. okay bedmaska ku dhufshada iyo ku darka ku dhufshada ayaa soo horeysa kadib bracketyada markaa kasoo dhamaato qaybtan ku dhufsato kadib kan lagu dari doonaa 60ka lagu dari doonaa ama si toos scientific u geli haddii aad wadato scientific kale ama qaybta gudaha si toos scientific u geli kartaa. aniga hadda yani scientific la-aan idoo ahayna yani markaas isticmaalay oo process dheer maray. adiga scientific daa wadato intaa ku hakan kartaaba yani intaad meeshan ayaad ku hakan kartaaba oo si toos scientific markaa u geliso almost jawaabteeda waa helaysaa marka. way example-ka 4.8 waxaana la siiyey class intervalka soo size in centimeter ku cabiran tahay. number of shirty soldiga la yani markaasi frequency-ha u taagan. marka hore intaan givenka baxsano marka hore waa inaan model class-keena aynu dooranaa. model class-ka waxaynu noqonayaan dhahnay frequency-ha most important most yani acre frequency inta badan dhaca ama ugu badan ama largest maximum frequency-ha ah ayaa waxaynu noqonayaan marka model class-ka. okay 33 oo frequency-ha ka 27 85 155 110 45 15 almost waa 155 ayaa waxay noqonaysaa marka midka ugu badan oo frequency-yaasha meesha yaala. okay model class-kan kaasoo noqonaa marka hadda waxaa inoo baahan marka inaan bixino wax loo yaqaano given inaan baxsano maadaama model class-keeni aynu helnay. givenka waxaan ugu baahanaa dhan lower class limit-kii oo 95 oo ah. sidoo kale widthska labada markii la kala jiro 100 markii 5 laga jiro waa 5. sidoo kale frequency-ha oo ah frequency-ha koowaad oo ah marka model class-ka leh 155 oo noqonaysa. frequency-ha ka dambeeya fk-1 ah 85 ah si la mid ah frequency-ha xigana model class-keena frequency-ha ku xigana 110 ay tahay. okay qaacidadiini ayaan ku dabaqaynaa marka. qaacidadu waxay noqonaysaa marka sida tan 95 oo lagu daray 5 oo h ka ah kadibna 155 oo ah frequency-ha model class-ka oo laga jaray 85
oo ah frequency-ha ka dambeeya oo loo qaybiyey 2 ku dhufsan frequency-ha model class-ka oo laga jaray 85 oo ah frequency-ha ka dambeeyey oo laga jaray 110 oo ah frequency-ha xiga model class-keena frequency-giisa waayahay kala jarista labadan markaan kala jarno sareeyaasha iyo qaybta hoose markaan isku dhufano durba waxaa inoo soo baxday sareeyaha inay tahay kala jaristooda 70 155 markii laga jaro 85 waxaa inoo soo baxaysa 70 si la mid ahay qaybta hoose 200 ama 2 ayaa waxaa ku dhufanaysaa 155 waxaa soo baxay 310 310 waxaad ka jaraysaa 85 waxaa ku soo baxaysa 225 225 waxaad ka jaraysaa 110 durba waxaad haysataa 115 okay 70 iyo 115 waa isku burburinaynaa oo 5 meel walba qaybinaynaa waxaa soo baxaysa marka 14 sareeyaha ah iyo 23 oo hooseeya ah 14 ayaa waxaan ku dhufanaynaa marka qaybta la sareysa oo ah 5 oo waxaa inoo soo baxaysa 70 70kii ayaa waxaa u qaybinaynaa 23 oo ah 23 waxaa inoo soo baxaysa oo qaybtan hadda intaan waxayna siinaysaa natiijo ah 3.04 and something 3.04 kaasaan ku keenaynaa kadibna 3.04ka ayaan waxaan ku daraynaa 95 isku darkooda guudna waxay inoo keenaysaa marka 98.04 ayay inoo keenaysaa moodka of grouped data qaabkaas ayaa loogu shaqeynayaa marka aada mahadsantihiin dhegeysigiina waxaan daawashiina qaaliga ah fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinaya gambareka like commentigana waa inoo muhiim mahadsanid